asxaabay soo dhawaada maanta waxaan rabnaa cashirkii inoogu dambeeyey oo inventory solviga ayaan rabnaa qaabka loo safgaraynayo inaan idin tuso marka waxaa sameyneynaa marka videoga sidaan aa u keensato oo qaybta editingka ay kuu joogto waxaa sameynaysaa ilaa 3 way ah wax u safgaray kartaa markaas 3 way ah u safgaray karto waxaa ka mid ah inaad halkan tagtid marka hore marka halkan aad tagtid ay ku qoran tahay meeshan ay ku qoran tahay macna drive ay ku qoran tahay inaad tagtid marka cabirka inaad halkan kasoo saxsatid halkaana waxay ku qoran tahay custom export ay ku qoran tahay waa defaultiga dhan waaye halkani waa dadka soo arkay Premier Pro cabirkani badan Premier Pro ay u badan tahay marka halkaasina waad dooran kartaa kana waad ka dooran kartaa ka doonto waad ka dooran kartaa hataa waxaad dooran kartaa YouTube-ki cabirkiisa dooran kartaa marka YouTube-ka cabirkiisa marka evaluation ku sameynayna laakiin dhammaantood waa isku wada mid marka YouTube-ka ugu wanaagsan waxaa sameynayna YouTube-ka marka sidaas u dooratid marka cabirka halkaani waa name-ki magacii aad doonaysaad ku qoraysa halkaani waa location-ka waaye waa dooranaysa halka adiga aad doonayso in lagu dhigo video marka anaga waxaa rabnaa in desktop-kana loo dhigo desktop-ka waa noo yaala already hore aan u dhignay marka cabirka ugu fiican waa resolution-ka ugu fiican waa 1920 10:80 waaye waa cabirka shaashadan dhan la siman waaye marka kaasi wax kama bedelaysid hadaa doonto waa ka bedeli kartaa waxaa ka dhigi kartaa 720 ka dhigi kartaa marka 720 video halkan oo ay ku ekaanaya meeshaan in madow ay ka noqonayso halkan waa sidaasi marka kan laakiin shaashadan fidow ku yahay okay frame rate-kiisana waxaa ka dhigaysaa 60 asiga waaye 60 ka dhigaysaa halka okay formatigana MP4 aad ka dhigayso quick time-kana waad ka dhigi kartaa laakiin MP4-kana waad ka dhigi kartaa ka doonto marka halka tape audio-guna waxaad ka dhigi kartaa native ka dhigi kartaa auto ay ka dhigaytaa aniga marka default-iga ayaa noo ahaanaya okay encoding profile-kan waa had waxa waaye high waaye okay main waa ka dhigi kartaa base waa ka dhigi kartaa auto waa ka dhigi kartaa marka height-kiisa ku deynaysa marka default-iga aad u wanaagsan yahay okay haddaan hoos u socono okay intaas kale saas muhiim uma ahan marka intaas qeyba ka dhigaysa marka intaas adiga aad samayso waxaad dhihi kartaa kadib macna add render aad dhehaysaa add render dadka photoshop-ka oo Premiere Pro soo arkay ama after effects soo arkay ayaa fahmi karo oo horena u soo qaatay marka qaybtan hadaad dhimaato maxallay xaj macna 265 hadaad dhimaato waa isla kuwii hadda anaga ay sharxayni waaye wax ma ka duwano ayadana marka hoos hadaa u socono waa isku qaabkii oo kale waaye marka adiga lagaa doonaya inaad wax yar un keliya kaga duwanyiin halkan marka video waa save garaynayso ma video ahaan lagu save garay ama audio ama file ahaan lagu save garay oo ku weydiinayo halka laakiin YouTube-ka intaasi uusan ku weydiinaynin haddaan tagno soo ma jeedid YouTube-ka kuma weydiinayo laakiin kuwan waa sidaasi way ku weydiinayaan kan inta waa video ahaan ina u save garaysid ama kan audio ku qoran tahay cod ahaan ina u save garaysid ama haddaa file ahaan aad doonaysid file ahaan halka ay ku customer keyboard waa default-iga waaye asigana kaa doonta ka dhigi kartaa marka wax ma ka duwano intay hadda aan soo yaraxnay meesha indorika mainka ka doortay asiga marka mainka keliya waaye marka sidaa doonta ka dhigaysaa marka waxaad dhigi kartaa macna add render and quiz aad dhigi kartaa ka bacdi video muxuu sameynayaa inuu shaqadii qabsado oo wixii u save gareeya naqadiisa oo wixii render lagu sameeyo marka haddaa YouTube-ka tagtana qaybta YouTube-ka aad tagtana waa sidii asigna renderkii waaye isna markii waa soo qabanaya okay replace leedahay ka daba dhig marka wuxuu sameynaya shaqadii uu qabsanaya inuu render uu sameeyo render all adhaysaa render all marka dhaadid shaqadii hadda wuxuu bilaabay inuu wixii save gareeyo marka anaga ma rabno inaan qeybaha kale aan rabnaa inaan idin tuso marka cancel ayaad leedahay cancel marka dhaadid halkani waxaa ka dhigi kartaa render ka dhigi kartaa sigana oo qeybtani marka waxaa kala tegi kartaa halka ay ku qoran tahay file tegi kartaa meel ay ku qoran tahay hadaad arkayso macna quick export marka renderka ilaa hadda wax naga soo xoogaa waa toosan u cancelina okay qaybta hadda noo joogtaan ka tagayna edit-kan tagayna edit-ka markaad tagto waxaa arkaysaa meel ay ku qoran tahay renderka ay ku qoran tahay arkaysaa marka halkaas file tage meel ay ku qoran tahay soo ma jeedid macna quick export tagaysaa ka bacdi automatic waa soo qabanaysaa soo ma jeedid automatic halkaana kuu soo qabanaysaa marka halkan ay kuu soo qabato ka bacdi waxaa sameynaysaa
export leedahay. Export marka dhahdid kabacdi waxaa lagu leeyahay goobteen lagu dhigaa, goobta lagu dhigaa sheegaysaa, kabacdi render lagu sameynaya. Marka wadadaas waa sameyn kartaa in wixii render aad ku samayso. Marka labadaas wado ayaad ku render gareyn kartaa. Marka wado saddexaad ayaa jirto oo halkan kuu soo qabanayso marka aad joogto kadka aad joogto, halkan ku qoran tahay quick export ku qoran tahay tagaysaa. Marka wadadana waa ku export gareyn kartaa. Marka intaasi way ayaa videoga export uga sameyn kartaa. Marka intaas ayaa rabaa videogan inaan ku soo amirno. Marka insha Allah page-keena 10,000 loo gaarsiiyo. Kan haddaan dhameyn waxaan rabnaa inaan ku xijino CapCut oo ilaa 50 ayaan rabnaa inaan ka keeno. Marka insha Allah videogan ummadana haloo share gareeyo, YouTube-keeni iyo page-keeni Facebook dhammaan haloo booqdo. Marka dhammaantoodii 10,000 loo gaarsiiyo, anagana si mutawaacnimo ku jirta ayaan idinku adeegi doonaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.